لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، weli waxaan ku dhex jirnaa suuratu baqara. waxaa noogu soo dambeysay axkaamtii soonka iyo sida habeenka ramadaanka laga yeeli lahaa iyo wixii dadka loo fasaxay, xilliga uu bilaabanayo cunitaanka iyo xilliga markaa la joojinayo, in xoolaha dadkan baadil lagu cunin, xukaamtan aan loo raaricinin, bisha dhalashadeeda iyo faa'iidada markaa ku jirta, samafal iyo wanaag inuusan ahayn guryaha in duudka looga yimaado ama dhabarka, laakiinse biriga inuu yahay in ilaahay laga cabsado. guryahana albaabaha kasoo gala buu dhahay ilaahay. dagaalama jidka alla ku dagaalama, kuwii idinla dagaalamayna la dagaalama, walaa tactaduu ina allaha laa yuxibu almuctadiin. hana xadgudbina, ilaahay dadka xadgudbaa ma jeclee. waqtuluuhum, laaya, la dagaalama, xaysu meel allaala meeshii haqiftumuuhum aad ka heshaan buu dhahay ila subxaana wa tacaala. wa akhrijuuhum, ka bixiya oo ka saara min xaysu meeshii akhrajuukum ay idinka bixiyeen. waalfitnatu, fitnada iyo shirkiga ayaa ashaddu ka daran min alqadli, dilkeed. walaa tuqaatiluuhum, ha kula dagaalamina cinda almasjidi alxaraami, masaajidka xurmada leh agtiisa, xataa yuqaatiluukum, ilaa idinkula soo dagaalamaan fiihi gudihiisa. fa in qaataluukum, hadday idinkula soo dagaalamaanna faqtuluuhum, laaya oo la dagaalama. kadaalika sidaasaa jazaau lkaafiriina, kaafiriinta abaalkoodu yahay. gaalada saasaa loogu abaalgudaaya, laaya buu dhahay ilaah subxaana wa tacaala. waqtuluuhum, la dagaalama gaalada xaysu haqiftumuuhum, meel allaala meeshii aad ka heshaan kula dagaalama. wa akhrijuuhum, ka bixiya min xaysu akhrajuukum, meeshay idinka bixiyeen. waa make, waayo maka way ka soo saareen nebiga iyo muslimiintaba. idinkana ka bixiya markay soo baxeen oo ay yimaadeen sanadii 8 fatxo maka markay dhacday oo la qabsaday, waa laga saaray. in badan baa islaamtay, wixii islaamin oo gaalnimadoodii ku adkaadayna waxay sii joogi waayeen magaalada makoo way kasii carareen. tibuu ilaahay tilmaamayaa, wa akhrajuuhum, ka bixiya min xaysu akhrajuukum, meeshay idinka saareenay idinka bixiyeen. waalfitnatu, fitnada iyo diintoo dadka laga hor istaago oo fitno lagu sameeyo ama shirkiga ashaddu waayo mid ka daran min alqatli, dilka. walaa tuqaatiluuhum, ha kula dagaalamina muslimiinay cinda almasjidi alxaraami, masaajidka xurmada leh agtiisa, xataa yuqaatiluukum, ilaa ay idinkula soo dagaalamaan fiihi gudihiisa. fa in qaataluukum, hadday idinkula soo dagaalamaanna faqtuluuhum, la dagaalama oo iska celiya. kadaalika saasaa kaafiriina, kaafiriinta abaalkoodu yahay. fa in intahow, hadday reebtoonaadaan, ka istaagaanay ka joogsadaan dagaalkay idinku wadaan iyo fidnada ay wadaan. fa ina allaha, ilaahay gafuurun, alla dembi dhaaf badan waaye, raxiimun ee naxariis badan. hadday joogsadaan oo ay ka haraan waxyaabaha ay ku socdaan, fitnada ay wadaan, horjoogsiga ay wadaan, gaalnimada ay ku socdaan, dagaalkay idinku hayaan, intaba. fa in intahow, hadday ka reebtoonaadaan oo ay ka istaagaanay joojiyaan. fa ina allaha ilaahay gafuur, alla dembi dhaaf badan waaye, raxiimun ee naxariis badan. waqaatiluuhum, la dagaalama oo laaya, xataa laa takuuna, ilaa aysan ahaanin fitnatun, ilaa fitna la waayo, wayakuuna addiinu, diinkuna uu u ahaada lilaahi ilaahay. fa in intahow, hadday ka reebtoonaadaan oo ay joogsadaan waxa ay ku socdaan iyo fidnada ay dhaafaan, falaa cudwaana, xadgudub iyo colaytan ma ahaanin, ilaa cala aldaalimiina, daalimiinta dushooda maahane. ilaa wixii daalimiin noqdo dulmi falo, shirki la yimaado, muslimiinta dhiba maahee, cid kaloo markaa cudwaan iyo dulmi loo geysanayo ama xadgudub markaa ma jiro. waqaatiluuhum,
la dagaalama xataa laa takuuna ilaa la waayaysan ahaanin fitno diinta dadka laga fidneeyo ama shirki iyo gaalnimada oo wayakuuna diinkuna uu u ahaada lilaahi ilaahay. fa in intahow hadday ka haraan oo ay ka reebtoonaadaan fitnada iyo dhibaatada iyo dagaalkay idinku hayaan hadday ka joogsadaan falaa cudwaan iyo xadgudub iyo colaytan intaba ma ahaanin ilaa cala daalimiinta korkooda maahane. ashahru bisha alxaraamu ee xurmada leh bishahri bishii ayay u dhigantaa alxaraami ee xurmada lahayd. waalxurumaatu shayaalka xurumaadka ahna qisaas baa ahaaday. waa qisaas ayuu yidhi waxyaabaha la ixtiraamo ayaguna qisaas ayaa markaa ahaaday. faman ictadaa qofkii xadgudba calaykum korkiina ku xadgudba factaduu ku xadgudba calayhi korkiisa bimithli mactadaa mithlkii iyo intuu idinku xadgudbay calaykum korkiina oo kale. wattaquu llaha ilaahayna ka cabsada waclamuu ogaada ana allaha ilaahay maca almuttaqiina muttaqiinta micigooda inuu yahayna taana ogaada buu yidhi ilaa subxaana wa tacaala. bilaha xurmada leh hadday idinku soo xadgudbaan dagaal ay idinku qaadaan muqaabil bay u noqonaysaa iyo mid u dhigantee bil xurmo leh ugu xadgudba idinkana. ashahru bishii alxaraamu ee xurmada lahayd bishii xurmada lahayd bishahri bishii ayay u dhigantaa alxaraami ee xurmada lahayd. oo bil xurmo leh hadday idinku soo xadgudbaan ay idinkula dagaalamaan muqaabil bay u tahee qisaas baana wax kasta ahaadee bil saasoo kaleo xurmo leh haddaad kula xadgudubtaan dhibaata markaa kuma sugna. ashahru alxaraamu bilaha xurmada leh bishahri bishii ayay u dhigantaa alxaraami ee xurmada lahayd. waalxurumaatu waxyaabaha la ixtiraamana waxyaabaha muxaramaadka ahee waaweynna qisaas ayaa markaa ahaadayoo qisaas ayaa ahaaday. waa qisaas dheh. faman ictadaa qofkii xadgudba calaykum korkiina factaduu idinkuna ku xadgudba calayhi korkiisa bimithli mactadaa intuu idinku xadgudbay oo kale calaykum korkiina. wattaquu llaha ilaahayna ka cabsada waclamuu ogaada ana allaha ilaahay maca almuttaqiina muttaqiinta micigooda inuu yahay. ee wa anfiquu nafaqeeya oo bixiya wax ku bixiya fii sabiili illaahi ilaahay jidkiisa. walaa tulquu ha ku ridina biaydiikum gacmihiina ila tahluka iyo dhibaata ha ku ridina. wa axsinuu ixsaan sameeya ina allaha ilaahay yuxibu almuxsiniina muxsiniinta mid jecel waayo dadka muxsiniinta ah ayuu ilaahay jecel yahay. nafaqeeyo wax bixiya jidka alla wax ku bixiya gacmihiina tahluka ha ku ridina meel qatari khasaare ha ku ridina meel dhibaato idinka soo gaaraysa iska ilaaliya. jihaadkana ha joojinina macnaha haddii aad joojisaan waxay la mid tahay gacmihiina oo tahluka aad ku rideen. wa axsinuu ixsaan iyo wanaag sameeya ina allaha ilaahayna yuxibu almuxsiniina muxsiniinta mid jecel ayuu ahaaday. wa atimu alxaja xajkana taam yeela oo dhammaystira iyo walcumrata cumrada lilaahi ilaahay u taam yeela. haddaad bilowdaan ha kala joojinina amase taam yeeloo wejigii ugu kamaalsanaa ee nebiga u xaji u cimraystay saa markaa ula imaada. fa in uxsirtum haddii laydin xabaaso laydin shiro xaramkii laydinka hor istaago famastaysara wixii idiin fududaada ayaa korkiina ahoo min alhadyi hadyiga markaa ah. adoo xaramkii usii socdoo xarman ama xaj ama cumro usii socdaa waxaa kaa hor yimid wax ixsaaroo waa lagu xabaasay ama cadow baa jidka kuu galay. sulxudaybiye oo kale mar allaala markay rabeen inay sii galaan bay mushrikiinta ka hor istaageen. jiraa kuu timid waxyaaba noocaasa hadday dhacdo famastaysara ay fa calaykum korkiina maaba ahaaday istaysara idiin fududaadoo min alhadyi hadyi markaa ah. xoolun baad qalaysaa. walaa taxliquu hana xiirina ru'uusakum madaxyaalkiina macnaha madaxyaalkiina timahooda ha xiirina waaye xataa yabluga alhadyu ilaa hadyiga uu ka gaaro maxillahu makaankuu ku xalaal noqon lahaa. timaha iska goynina jasadkiina meel kastoo ay kaga taala waa mamnuuc. madaxiinana ha xiirina ilaa xoolaha maxalkay ku xalaal noqon lahaayeen laga gaaro. waa maalinta xoolaha la qalaayo ee tobanaadka la gaaro.
maalinta haddii la gaaro maxaa ugu horeeya maalinta tobanaadka ah jamrada oo la tuurto. mar allaala markiisaa markaa loo tuurtana xoolihii markaa la qalo, xoolaha markaa la qala kabacdi madaxa la xiirto, kabacdi dawaaful ifaada markaa la dawaafo ilaa xooluhu ay ka gaaraan makaankay ku xalaal noqon lahaayeen oo lagu gowracayay oo la qalo, madaxiina timuhiisa ha xiirina. faman ruuxii kaana ahaadoo minkum adinka idinka mid ah mariidan ku xanuunsan, ow amase bihi asaga adan dhib uu kaga sugan yahay min ra'sihi madaxiisa xaggii, fa fidyatun fidya ayuu bixinayaa kaa korkiisa fidyaa laga rabaa oo min siyaamin soon ah, aw sadaqatin ama sadaqaa, aw nusukin ama gowraca. saddexdaa midood ayuu markaa la imaanayaa. xakiin waa mariid, wuxuu u baahday timihiisii in la xiiro, amase adi io dhib baa ku jiro qumul iyo injir baa ka buuxsantay. kacb ibnu cujra wuxuu yidhi, rasuulkaa la ii soo qaaday, aayaddan aniga si qaasa iigu soo degtay, idinkuna caab bay idiin tahay. injirta oo wejigayga kusoo qubanaysa ayaa nebiga la ii geeyey. war ma moodin buu ii yiri buu yidhi, hawaamkii iyo xasharaadka in dhibka noocan uu kaa soo gaaray, ee ma heli kartaa ri aad qasho oo mataqaanaa ah nusuk, amase 3 maalmood aad soonto, ama masaakiin aad markaa wax siiso, ilaa heerkaa ma samayn kartaa? qofka noocaasa madaxa wuu xiiranayaa haddii dhib uu ka jiro, amase mashaakilkan markaa uu jiro, idan fidyuu bixinaya oo siyaam ah ama sadaqa ah ama nusug markaa ah. wa atimu alxaja, xajka dhammaystira oo u taam yeela lilaahi iyo walcumrata cumradaba lilaahi ilaahay. fa in uxsirtum haddii laydin shiro oo laydin xabaaso xaramka laydinka hor istaago, famastaysara wixii idin fududaadaa korkiinoo min alhadyi, hadyi markaa ah geel iyo lo iyo ari waxaad gowrici karto. walaa taxliquu, ha xiirina ru'uusakum madaxyaalkiina timahoodana, xataa yabluga alhadyu, ilaa xoolihii hadyiga ay ka gaaraan maxillahu makaanu xalaalowgiisii, maxilkii makaankii loogu talagalay in lagu gowraco. faman ruuxii kaana ahaadoo minkum adinka idinka mid ah mariidan mid jiran, ow amase bihi asaga ay ku sugan tahay adan dhib min ra'si madaxiisa oo xiirtaa, fa fidyatun fidyuu bixinaya oo min siyaamin soon ah, aw sadaqatin ama sadaqaa, aw nusukin ama gowraca. fa idaa aamintum haddaad aamin noqotaan, faman ruuxii tamataca tamatucayoo bilcumrati cumro ku raaxaystay ila alxaji ilaa xaj laga gaaro, famastaysara asagana wixii u fududaaduu bixinaya oo min alhadyi hadyi markaa ah. faman lam yajid qofkii aan helin tamatucay xoolo uu qalana waayey, fa siyaamu soon baa laga rabaa 3 ayaamin 3 maalmood fi lxaji xajka uu kusoo dhex soomo, wa 7 7 idaa rajactum markaad laabataan, tilka taasi 10 waa 10 kaamilatun buuxda. daalika arrintaa xukunka tamatuca ah liman buu u sugnaaday lam yakun uusan ahayn ahluhu ehelkiisa xaadiri kuwii degan almasjid alxaraami masaajidka xurmada leh. dadka reer makaa markaa kuma jiraan macnaha. wattaqu llaha ilaahay ka cabsada, waclamuu ogaada ana allaha ilaahayna shadiidu alciqaabi ciqaabkiisa inuu adag yahay. xajka iyo cumrada alla dartii u dhammaystiroo u taam yeela. fa in uxsirtum haddii laydin shiroo laydin xabaaso, famastaysara wixii fududaadaa korkiina ahaadoo min alhadyi hadyigii markaa ah. walaa taxliquu, ha xiirina ru'uusakum madaxyaalkiina xataa yabluga alhadyu, ilaa xoolihii hadyigaa ay ka gaaraan maxillahu makaankuu ku xalaal noqon lahaa. faman kaana ruuxii ahaaday oo minkum adinka idinka mid ah mariidan mid xanuunsan, aw bihi amase ay ku sugan tahay adan wax dhib ah min ra'si madaxiisa, madaxii baa ka bukaday ama injir baa gashay oo markaa xiirta, fa fidyatun fidyaa laga rabaa oo min siyaamin soon ah, aw sadaqatin ama sadaqa ah, aw nusukin ama gowraca. xoolo un markaa gowraco. fa idaa aamintum haddaad xajkii acmaashiisii ka aamin noqotaan oo aad dhammaysaan, faman tamataca qofkii ku tamatucay oo ku raaxaystay bilcumrati cumro ila alxaji xaj intii laga gaaro. waa qabka tamatuca ah, waa qof bilaha xajka intuu cumraystay dharka iska dhigay, kabacdi tamatucay oo raaxaystay, kadibna yowmu tarwiya maalinta 8aad markii la gaaray dharkiisii labistay xaj xirtay, kaasaa markaa loola jeedaa. waa tamatuco cumro ila xaj laga gaaro ayuu ku raaxaystay. famastaysara ninka noocaasi habkaa u xajiya waxaa korkiisa ahaaday wixii u fududaada oo min alhadyi hadyi markaa ah. xoolaha hadyigaa wixii u fududaadu markaa bixinaya. ilan tamatuca saadaa loogu talagalay.
qiraanka qofka u xajinaya bisharti waa inuu xoolaba wadaa markii horeba. hadduusan xoolo wadin qiraan maba u xajin karaba. dadkii qiraanka xirtay xajkii cumrada isdhexgeliyay sidii nebiga oo kale, mar allaala markii kacbada la galay rasuulku wuxuu dhahay intii hadyi wadataa sidiina ahaada, ama intaan hadyi wadanin oo qiraan ila xirtay tamatuca oo fasaqa ee imtiqaanaa xajkiina cumro sameeya, dharkana iska dhiga, tamatuca oo raaxaysta, maalinta 8aadna dharka xirta, mar allaala markuu xajku dhammaado ama maalinta 10aadna xoolo gowraca. haddaad weysaana 3 beri xajka ku sooma, 7na markaad eheladiinii wadamadiina ku laabataan. habkaas waa habka tamatuca ah. qiraankuna waa isdhexgelin. ninka qiraankaas sidiisaba ma xalaaloobayo ilaa maalinta 10aad laga gaaro oo xoolaha waqtigoodii la qalaya la gaaro. qaybta 3aadna waa ifraado, waa xaj keligii, soonna lagama rabo, xoolana lagama rabo. xataa hadduu doono markuu xajka u dhammaado yaa intuu tanciim tago uu ka soo xarmado yuu cimraysan karaa, dhibna kuma sugna. saasuu ilaahay tilmaamayaa faman tamataca qofkii ku tamatucay bilcumrati cumro ila alxaji xaj intii laga gaaro fa fidyatun min siyaamin aw sadaqatin aw nusukin. faidaa amintum haddaad aamin noqotaan oo xajkii acmaashiisii idiin dhammaada, faman tamataca qofkii tamatucay ku raaxaystay bilcumrati cumro ila alxaji ilaa xaj laga gaaro, famastaysara wixii u fududaadaa laga rabaa uu bixinaya oo min alhadyi xoola ah. geel baa ugu weyn, ari baa ugu yar. faman lam yajid qofkii aan helin fa siyaamu waa soomayaa oo fa calayhi siyaamun korkiisa soon baa ahaadayo 3 ayaamin 3 maalmood uu soomo. fa siyaamu 3 ayaamin xaguu ku soomayaa fi lxaji xajka gudihiisa. xataa hadduu waqti kala waayo wuxuu soomayaa ayaamu tashriiq. waayo ayaamu tashriiq waa ayaamul cunitaan iyo cabitaanoo soonku waa mamnuuc ilaa qofkii hadyi waaye maahane. ka hor hadduu soomo waa suuragalo waa samayn karaa. hadduu xoolo waayo 3 maalmood buu xajka ku soomayaa. wa 7 idaa rajactum markaad noqotaanoo guryihiina aad u noqotaan, tilka 10 taasi waa 10 maalmood soonkoodo kaamilatun kaamil ah. daalika xukunkaa tamatucii xoolaha saa la yeelay soonka liman buu u sugnaaday lam yakun uusan ahayn ahluhu ehelkiisa xaadiri kuwa degan almasjid alxaraam taam yeeloo dhammaystira iyo walcumrata cumradaba waatimu alxaja waalcumrata lilaahi alla dartii u taam yeela. fa in uxsirtum haddii laydin xabaaso oo laydin shiro xaramka laydinka hor istaago famastaysara wixii idiin fududaadaa laydinka rabaa oo min alhadyi xoolaha hadyiga ah. walaa taxliquu ha xiirina ru'uusakum madaxyaalkiinana xataa yabluqa ilaa uu gaaro alhadyu xoolihii hadyigaa ee la waday maxillahu makaanu xalaalowgiisii meeshii markaa lagu qali lahaa. faman ruuxii kaana ahaadoo minkum idinka mid ah mariidan mid xanuunsan oo buka aw bihi adan ama dhib uu ka qaba min ra'sii madaxiisa xaggiisu injir baa markaa gashay ama nabraa ka soo baxay oo markaa xiirta, fa fidyatun fidyaa laga rabaa oo min siyaamin soon ah aw sadaqatin sadaqa ah aw nusukin ama gowrac markaa ah. fa idaa amintum haddaad aamin noqotaanoo xajkii iyo acmaashiisii aad ka aamin noqotaana idiin dhammaato, faman tamataca qofkii ku tamatuca bilcumrati cumro ila alxaji ilaa xaj laga gaaro, famastaysara wixii u fududaada ahaaday oo min alhadyi hadyi markaa ah. faman lam yajid qofkii hadyigaa waaye fa siyaamu soom baa korkiisa ahaadayo 3 ayaamin 3 maalmood uu soomo fi lxaji xajka gudihiisa uu ku soomo. 3 ayaamin fi lxaji wa 7 iyo 7 idaa rajactum markaad dib ugu laabataan eheladiina, tilka taa 10 kaamilatun 10 buuroo buuxda waaye. daalika xukunkaa liman baa iskale lam yakun uusan ahayn ahluhu ehelkiisa xaadiri lmasjidi alxaraami masaajidka xurmada leh kuwa ag degan ama xaadir ku ah. wattaqu llaha ilaahayna ka cabsadoo waclamuu ogaada ana allaha ilaahay shadiidu lciqaabi ciqaabkiisa miduu adag yahay inuu yahay subxaanahu wa tacaala.